Assalaamu calaykum. habeen wanaagsan ama maalin wanaagsan kaydintayba Anigu ah walaalkin Cabdilmajiid. waxaa la sheegaa inuu fashilku yahay qayb ka mid ah guusha, balse markasta oo aad ka saarto maankaaga guuldarrada oo markasta oo aad qaaday dharbada fashilka dhabta ah. Muuqaalkeenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa 5 ka mid ah shirkadihii ugu waaweynaa caalamka oo albaabada la iskugu dhuftay amaba xidhmay kana baxay shaashadaha caalamka, inagoo raacin doona sababihii ay iflaaseen amaba ay u xidhan shirkadahan. inta aynaan mawduuca u gudagelin waxaanu kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe-ta saarto si ay nugu noqoto dhiirigelin. ku soo dhawow Shirkadda ugu horeysa AMB waxay shirkadani ahayd mid wax soo saarkeedu yahay cuntada. Waxay shirkadani mid aad u ballaaran waxayna ku baahday amaba ku kala taallay caalamka oo idil, balse shirkadani waxay mar kaliya ku dhawaaqday inay xidhantay oo aanay maanta kadib sii shaqayn karin. Sababka ugu weyneed ee haysatay ee ku kacday shirkadani albaabkan iskugu dhufatay waa in ay ahayd inay maankoodaba galin inay maalmaha ka mid ah ay xidhmi doonaan, mana ay samayn shirkadani wax horumar ah, waxaana ay ahayd mid gaboobay habsocodkeedu. Ugu dambeyntiina waxay xidhantay shirkadani sanadkii 2015. Shirkadda labaad waxaa lagu magacaabi jiray Sport Authority. Waxay ahayd shirkadani mid wax soo saarkeedu yahay amaba ka shaqeysa dharka loogu talagalay ciyaaraha. Isla shirkadani waxay raacday tii aynu kasoo hadalnay meeshii ay martay tii hore, kaas oo ahayd inaanay jirin wax horumar ah, sababtaas oo noqotay shirkadani inay gebi ahaanteedba albaabada loo xidho sanadkii 2016. Shirkadda saddexaad ayaa mid lagu magacaabi jiray Ruby Tuesday. Tan waa shirkad ka cajab badan kuwii hore. Ugu horreyntii shirkadani waxay ahayd mid ay shaqadeedu tahay cuntada. Waxa ay lahayd shirkadani 400 oo qaybood oo ku kala yaal adduunka dacaladiisa ama daafihiisa oo dhan. Ugu horreyntii waxaa ka xidhmay shirkadan in ku dhow 10 farac ama qaybood. Waxba ay kama ay soo qaadan xidhmada dukaamadeeda ilaa ay ugu dambeyntii ay gebi ahaanba wada gaadhay xidhmidii oo ay xidhantay gebi ahaanba. Shirkadda afraad ayaa ah mid lagu magacaabi jiray Toys R Us. Shirkadan oo ku caan baxday amaba ku soo shaac baxday iibinta alaabaha ciyaalka yaryar amaba qalabka yar ciyaalku ku ciyaaro. Shirkadan Toys R Us waxaa la aasaasay sanadkii 1948. Intaa kadib waxay noqotay shirkadani mid aad u ballaaran kuna baahday adduunka intiisa badan, balse ayaan daradii soo wajahday shirkadan ayaa ah in ay hayeenkeedu socdaal u ahaa mid aad u gaboobay oo aan wax cusub lagu soo kordhinayn. Waxaa la sheegay shirkadan inay maalin walba iibin jirtay 500,000 alaab ah. Ugu dambeyntii waxay shirkadani saacisay sanadkii 2017 in ay ku wareejisay alaabteedii oo dhan amaba ka gaday shirkad kale oo lagu magacaabo TRU oo ay ka iibsatay. Shirkadda shanaad ee ugu dambeysa waa mid lagu magacaabi jiray Basius. Waxay shirkadani mid iibisa kabaha, waxayna ahayd mid aad u ballaaran oo ku kala taal caalamka oo dhan, gaar ahaan waxay ku badnayd dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay inay maalin walba iibin jirtay shirkadani 250 milyan oo beer oo kaba ah, laakiinse maankooda ma ay gelin inay maalmaha ka mid ah ay iflaasi doonaan ama ay xidhmi doonaan. Ugu dambeyntii waxaa albaabka loo xidhay amaba ay xidhantay sanadkii 2017.